السلام عليكم. boqortooyada xayawaanada waxa ku nool noolayaal ku kala gedisan qaab nololeedkooda iyo siday u eeg yihiin. Haddaba xayawaanadan ayaa qaar ka mid ah quruxdooda soo jiitaan dadka. Quruxdan ayaa lagu qiimeeyaa midabadooda, indhahooda, dhogortooda iyo dhererkooda. Muuqaalkan maanta waxaynu ku eegi doonaa qaar ka mid ah xayawaanada ugu quruxda badan adduunka. Si aad u ogaatid ka ugu quruxda badan dhammayso muuqaalkan. Haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biir, muuqaalkana like saar. mahadsanid. Faraska Farisian. Faraskani waa mid ka mid ah fardaha ugu da'da weyn. Wuxuuna la gaar yahay midabkiisa oo jirkiisa oo dhami waa wada madow. Dhererkiisa waxa lagu qiyaasaa 147 cm ilaa 173 cm. Wuxuu leeyahay qoor dheer, dhago gaagaaban iyo tin dheer. Sidoo kale wuxuu leeyahay qaab dhismeed awood leh oo jirkiisa waa wada muruqyo. Arrinkaas oo quruxdiisa sii kordhinaya. Waa mid ka mid ah fardaha ugu quruxda badan. badankana waxa laga helaa dalka Holland. Shabeelka cad. Iyadoo awalba ay shabeelladu ka mid yihiin xayawaanada ugu quruxda badan marka loo eego hariiryahooda iyo jirkooda guud ahaan, haddana shabeelkani waxa uu kaga qurux badan yahay shabeellada kale waa midabkiisa cad, kaasoo u yeelaya haybad gaar ah. Sidoo kale indhihiisa soo jiidashada leh ayaa iyaguna ka qayb ah quruxdiisa. Xayawaankan tiradiisu way yar tahay, waxaanu ku badan yahay dalka Hindiya oo waxaaba loo yaqaanaa Indian Tiger, shabeelka Hindiya. Labkooda dheerkoodu wuxuu gaadhaa 2 mitir, culayskooduna waa 200 ilaa 230 kilogram. Dhadigana dheerkoodu waa 2.5 mitir, culayskooduna waa 130 ilaa 170 kilogram. Daa'uuska. Shaki la'aan mid ka mid ah xayawaanada ugu quruxda badan adduunka. Midabadiisa kala duwan sida cagaarka, midabka dahabiga, buluugga iyo midabada kale ee u dhaxeeya. Sidoo kale baalashiisa aadka u dhaadheer ee quruxda badan waxay ka mid yihiin sababaha ka dhigaya xayawaanka ugu soo jiidashada badan. Waxaa jira 3 nooc oo daa'uus ah. Midi waa ka buluugga ah, wuxuuna ku nool yahay dalalka Hindiya iyo Sri Lanka. Ka kalena waa ka cagaarka ah, wuxuuna ku nool yahay dalalka Indonesia iyo Burma. Ka saddexaad ayaa isagu ah daa'uuska Congo, waxaanu ku nool yahay qaaradda Afrika. Waxaa jira isagu mid ka yara soocan oo wada cad. Libaaxa cad waa mid ka mid ah libaaxyada dhifka ah. Jirkiisu aad buu u weyn yahay, dhererkiisuna wuxuu gaadhaa 1.5 ilaa 1.9 mitir. Midabkiisa cad ayaa soo jiidasho iyo qurux gooniya oo uu kaga soocan yahay libaaxyada kale u yeelaya. Waxaa laga helaa beeraha xayawaanada ee New Zealand, Canada, Hindiya iyo Faransiiska. Kalluunka Mandarin. Caalamka badda waxa ku gadaaman sirooyin badan. Mid ka mid ah sirahanna waxa ka mid ah kalluunkan midabada aadka u quruxda badan leh. wuxuu ka mid yahay xayawaanada badda ku nool ee ay badanka sawir qaadayaashu raadiyaan. Qaabka uu eeg yahay aad moodaysa inuu gudihiisa iftiin ku leeyahay, kaasoo ka dhigaya inuu iftiimo ama dhaldhalaalo isagoo ku jira gunta badda. Kalluunkani badanka habeenkii ayuu soo baxaa. Midabadiisa kala duwan ee quruxda badan ayaa ka dhigaya mid ka mid ah xayawaanada ugu quruxda badan ee badda ku nool. Shimbirta Macaw. Mid ka mid ah shimbiraha ugu quruxda badan adduunka, waxay ka tirsan tahay reerka loo yaqaano Sidai. Shimbirtani waxay leedahay noocyo kala duwan oo qaar way cas yihiin, qaar waa cagaar, qaar kalena waa liimi. Shimbirtan haddii la xanaaneeyo ama beeraha xayawaanada lagu daryeelo, da'deedu waxay gaadhaa 30 ilaa 50 jir. Waxay badanka duulaan iyagoo koox ah, arrinkaasoo qurux kale u sii yeelaya. Shimbirtan badanka waxa laga helaa kaymaha oo magaalooyinka laguma arko. Intaas waxay ahaayeen 6 ka mid ah xayawaanada ugu quruxda badan adduunka. Haddii aad muuqaalkan ka heshay like saar, asxaabtaadana la sii wadaag. muuqaalka maanta intaas noogu eegyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.